gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa ku qarxay meel u dhow xafiiska laanta canshuuraha ee agagaarka dekada ee degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho. gaariga laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa ahaa caasi ama hoome. qarxa ayaa waxa uu ka dhacay meel ay ku qaxweynayeen dad shacab ah ee ku dhow dekada magaalada Muqdisho, taasi oo ka dhalatay dhimasho iyo dhaawac, iyadoo dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay ay u badnaayeen dad muruq maal ah ee ka shaqaysanayay dekada magaalada Muqdisho, sida uu inoo sheegay goobjooge ku sugnaa goobta qaraxa. intaan qaraxa dhicinaaba soo gaaray kadibna anoo shaah markaas gabadha ii shubeeyay oo shaah lii shubayo ayaa qaraxii dhacay. qarax markuu dhacay hadda meelaan ka baxaba garan waayay oo meeshii dhanba boor bay noqotay. kadib waxaan arkay gabadha shaah ay shubtay cunuga ay ii dhashay oo aniga ugu dhagan. cunugiya marka aan waday war horteena noo bixi baan idhi. kadib markaan horteena u bixi cunuga aan waday ninkaana markii qabtay war adaab dhaawac ah cunuga guriga si aade sabax ku sadhay inta adka ligay barkad waa lii soo dhay. gudoomiye ku-xigeenka dhinaca arrimaha bulshada ee degmada Xamar Jajab Axmed Cabdullaahi Samow oo ku hadlay goobta ayaa u tacsiyeeyay dadkii ku geeriyooday qaraxa, wuxuuna ugu baaqay shacabka ku nool degmada Xamar Jajab inay ka hortagaan dhibaatada ceenkan oo kala ah ayna la shaqeeyaan ciidamada ammaanka. dadka dhibaatadaas geystay waa dad aan naxariisanayn ee naxariistayaal ah, maxaa yeelay muuqaalkooda iyo dabcigooda iyo dhaqankooda ka fahmaysaan. hooyo masaakiin ah, wiil masaakiin ah, darawal masaakiin ah, nin xamaali ah oo raba inuu dekadaas ka shaqaysto oo ku sugaaya geedahan harkooda hoostooda in qarax la soo hoos dhigaa dadka lagu baabi'inaya. ummadana uma asxaanfalayaan, naftooda uma asxaanfalayaan. marka waxaan ku tilmaanno waaba caay xataa aan cayn karnaa ma jiro, waxaan ku tilmaami karnaa ma jirto. marka waxaan leenahay dhaqankaas xun waxaa zuulin kara ummadoo isku tagta. ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto ha midowdo, ha aragta dhibaatada dadkeeda lagu haayo, ha aragta dhibaatada lagu haayo ummadeeda. taliyaha qaybta guud ee weliyo cadde gaashaanle sare Maxamed Daahir ayaa weerarkan foosha xun ku tilmaamay mid wuxuushnimo ah, wuxuuna tacsi u diray dadkii ku geeriyooday. sida arkaysaanba meeshan saakay waxa ka dhacay arrin musiibo ah oo amargmo doonta ah in nimankaas dhagarqabayaasha ah dhiigyacabiyaasha ummadda Soomaaliyeed ay arrin musiibo ka dhigeen ay ku xasuuqeen dad muwaadiniin Soomaaliyeed oo bilmageyda sida dumar iyo caruur iyo gabdho iyo dad xamaalata ah meeshan qaxwo ku karsanayay dadkii shaakirinayay dadkii masaakiinta dekada galay oo xamaalanayo shaahooda meesha ka cabaya subaxdii ala saydii wax taargada oo dawladeed oo barnaamijka meeshaas soo dirtaanad muuqatana mid jiraan. shalayaha ciidamada NISA waxay ka hortageen gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa ee la doonayay in shacabka lagu dhibaateeyo, kaasi oo ku qarxay agagaarka Siinka Dheer, iyadoo asirigii joojiyey gaarigaasi uu ku geeriyooday. Muuse Cismaan Abtow, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.